markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii waasuge iyo warsame sodcaalkii 30 maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare. waxay inoo maraysay laba ixdigle dirir iyo labadii oday oo tiigsanaya arigii allabariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen. wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay, dabadeedna tagsiilo ordayaa uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay. markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka ummadda oo ahaa halkuu shilku ka dhacay, ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay, waa tii waasuge iyo warsame ku waliba intuu marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaargaroobay. dabadeed iyadoo la isku ildaran yahay ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska waddooyinka. markaasaa dadkii dib u wada gurtay, xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo rida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado, waxaana laysu raacay xafiiska booliska waddooyinka iyo xamar barigeeda. intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu dirir odayaashii ku yidhi, aqalkii sii taga oo sii geeya rida aan dhaawaca ahayn. odayaashiise hadalkaa ma aqbalin. sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay waasuge oo yidhi, diriirow, wixii laysla sheegto ama laysku sheegtaa waxay u baahan yihiin 5 waxyaalood: nin sheegta, nin lagu sheegto, shahaado marag fura, sheekh xugmiye iyo sharkamatiire fuliye. warsame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi, diriirow, soo meesha la tegaayo ra kuma doodayo, sow xis iyo sharci miduun xaajadu ku dhammaan mayso, sow madax ama mooro miduun qaadan mayno. mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo waasuge iyo warsame? sowsama aad maqalgabaygii sayid maxamed ee ahaa shir aguugay, waayeel abyamay tala ashaadowday, irda jiqa albaaba isku xiran ee la bixin waayey, xaajada afraha duubatay ee loo olmami waayey, nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo, inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo, ninkii maalintaa ka arrinshaa caaqil sow ma aha. dirir odayaashii waa u taag waayey, halkaas ayayna iska raaceen. nasiib darro, markii xafiiskii la tegay, labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey. iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen, iyagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aan mudankooda ahayn. dirir iyo tagsiilihii dood dheer ayaa dhex martay, laakiin dirir ayaa markii dambe si odaynimo ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey, isagoo yidhi, markii horeba waxaan ridaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin. sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay. wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiilaha waxba u haysan. markaas ayayna xaajadii fududaatay. booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fuliyey oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaadhay loo soo qiimeeyo, isla markaasna tagsiilihii ka qaaday xaashiyihii baabuur wadidda inta wax la kala hubsanayo. sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay. inta waxaasi dhacayeen, odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carab bastood la ah, laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag mid uun loogu yeedhi doono. warsame wuxuu niyadda iska leeyahay, dirir ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo, ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuuba idinma qabsateen. waasugase waxay la tahay in asaga iyo warsame meel looga dhacay, xoogna loogu diiday xaajo ay leeyihiin wax ka qabashadeeda, taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin. arrintaasna wuxuu waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saahid qamaantirin jiray ahaana, rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi
mase inaanu nahay oy tolnima meerta noo tahay aan weliba kaga miil caddahay miirsa diidaniye masalaha ninkaan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho. dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay, kadibna odayaashii uga warramay siday xaajadii ku dhammaatay, waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska waddooyinka. ha yeeshee waa suge iyo warsame kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay, inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen. dirir iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen iyagoo riyihii tagsi ku sida, waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday. waa suge iyo warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn. waxaa gogasha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh. labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cunto kariska ku howlanaa ayuu waa suge inta isha la raacay niyadda iska yidhi, waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey oo lahaa makorow dhagax waaye, makacow dhulka waaye, makaraan xirsi waaye, mudulow aqal waaye, maka naagaha waaye. meerta waa ha la maaro, mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow. mooye geel la jaroo muuna loo qoray waaye, maqaarkii la aslaa masalaa la yidhaa. naagti maamul taqaan maakhiidaa la yidhaa. muslinkii la wacoo minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa. waa la meel mariyaa, midigtaa la qabtaa, wixii ay mar damcaan marxabaa la yidhaa. intii cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex martay sheeko qaayele. dooduna waxay ka furantay warsame oo raggii uga faallooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii. odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su'aal dulun ku jiro waa suge iyo warsame weydiiyey oo ku yidhi, haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaa u marteen maxaad waa suge iyo warsamow ka yeeli lahaydeen hadday qaalin geela ahaan lahayd? warsame ayaa inta si yastanu ku jirto u qoslay oo isaga iyo warsame isdhugteen yidhi, ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay? sababta markii la weydiiyena yidhi, ridu laba ragga ayay la wadaagtaayoo waa haarka iyo harreedka. laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas. laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga. laba lo'da ayay la wadaagtaayoo waa geesaha iyo guduudka. laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha. midna way dheer tahayoo iyadoo aan laba jir gaadhin ayay laba jir dad kaashibisa. odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wado inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kale qaatay yidhi, warsamow, haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan, waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn. sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn. isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su'aal u dambaysiiyey oo yidhi, warsamow, waxaa iga su'aala marka aad sidaas u hadlayso, ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee cumar isteeliya? gabaygii ay ku jirtay ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay, akhyaar iyo cuqaaliya haddii odayo loo sooco, wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto 100 awrku dheer yahay. haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaaye adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qayb 9aad oo ku saabsan sheekada warsame iyo waa suge sodcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo.